hadda waxyaabaha muuqanaya waxa weey hal wadaha la iskaga hor imaado oo hal abuuro sawaxan iclaamin iyo bayaanadadiyow aanan mas'uuliyadooda ahayn soo saaraan sharar jaraa'id oo ay qabanayaan beelaha iyo qabaa'iladu oo loo ma aragtay xasilooni darro abuurayso in beel intay shir iskugu imaato beel kale u jawaabto waa waxyaabo dhaqan oo qariib ah deegaanka Soomaalida dadkeenna hore ayna dhaqan ugu lahayn jirin haddana hadii ay abuurmaan wada jirka iyo nidaamka maamul ee aan haysano lidku ah weeya marka waxaan ka digaynaa shirarka abaabulada kicinta suura xumeynta ay dadiyowga qaar ku mashquulsan yihiin inaynan munaasib ku ahayn habka shakhsiyaadka iyo dadiyowga danaha gaar kale ay u wadaan xasiloonida amni ee jirto inaan la carqaladeynin dadiyowga carqaladeynaya ee rabo in amni darro ay dhacdo waxay duulaan ku yihiin nolosha caadiga ah ee bulshada munaasibna ma ahan dawladuna mas'uuliyadda kaga aadan way qabsanaysaa hadda ka hor sidaan ognahay shacabkeena waxa gaadhay dhibaato ka soo kabashadeedu ay adag tahay oo maalmo walba ama maalin walba la soo qufo xabaalo wadareed si arxan darro dadka loogu guray iyadoo xataa maamuuskii meydka loo asturi jiray aanan loo asturin dharkii kabihii iyo waxyaabihii usxabaalka lagu sameeyay dadka lagu aasayay ayaa maalin walba la soo guraya marka dadkeenu niyadooda iyo qalbiyadoodu kamayna soo kabanin dhibaatadii gaadhay taa iyadoo laga duulay dawladdu waxay sameysay in loo dhimriyo dadka loo meeyariyo gabood fallo system oo siyaasadaysan aanan la sameyn taas waxyaabaha lagu xaqiijiyay bulshadu xor bay afkaarteeda u ahayd nolol maalmeedkeeda ganacsigeeda cid walba siday maagto wixii aan nidaamka ka hor imanayn xor bay u ahayd haddana way u tahay taas ka sii badbadin iyo u bedelid fawdo soo dhoofin dhaqanno siyaasadeed oo dadyo kale ay leeyihiin in deegaanka laga abuuro siyaasado guracan oo dhinac ka raran dana shakhsiyadeedna lagu hirgelinaya ayaa muuqanaysa marka bulshada deegaanka oo runtii nolosheeda ay saameynaysa laakiin shakhsiyaad yar ay maskaxdooda iyo garashadooda ku ciyaarayaan waxa looga baahan yahay inay ogaadaan wacyiga jiro geeska xataa markii la eego xaaladaha jiro inaan lagu kaadsoomin fawdada laga abuurayo sawaxanka bulshada oo dhimrinta oo turiinka bulshada loo turayo waxay keentay inay space ama ay siiso xaalad dadka aan rabin kala dambeynta iyo deganaanta mar walba qulqulatooyin ay abuuraan arrimahaasna waxay u sii muuqanayaan inay fawdo isu bedelayaan dawladda waxay mas'uuliyad ka saaran tahay jihaynta nolosha bulshada hagidda siyaasadda shacabka lagu hogaaminayo laakiin haddii ay noqoto jihaynta iyo hagiddii bulshada in cid walba ay dhinac gacanta ka soo geliso iyadoo dhinacaan doonaan u jihayn ay tiraahdo waxa imanaya fawdo marka waxyaabaha jira hadda waa fawdada mas'uuliyadda dawladda ee ah in ummadda sida loogu talinayo masiirkeeda wada noolaanshaheeda horumarkeeda iyo qadiyadeeda danleyda siyaasadeed aynan ka dhaxarkin ama u bedelin cambaarayn suura xumeyn iyo iska horkeen bulshada iyo ma aragtay dawladdu waxay ku timid doorashada waqtigeedu uu dhow yahay ciddii afkaar siyaasadeed iyo hagaajin wixii hadda systemkan ay ku dhaliilaysa diyaar u ah way iman kartaa fursadii ay ku tartami kartay way u furan tahay laakiin dumin iyo suura xumeyn aflagaado la beegsanayo hogaaminta dawladda isku dir bulshada dhexdeeda laga hurinayo iyadoo colaado iyadoo lagu gabanayo xaaladaha markaas yaallo waa wax dib u celinaya nolosha bulshada ciddii danaynaysa bulshada waxa looga baahan yahay inay wax ku darto wixii gashi ah bulshada loogu adeegayo tala ku darto fikir ku darto dhinac iska taagto
waxa la wada leeyahayna sidaa weeye. hadda dowladda cid gaara male, dad wakiilo ah baa joogo, dadkaasi dowladda ma laha. dowladdu waa shacabka, cidda adeegaysa waa cid u adeegaysa bulshada. cidda systemka inay daaqad ka soo gasho ama intay dumiso fursad hesho raadinayso waa cid runtii hirgal iyo dhaqangal ku ahayn waqtiga iyo wacyiga hadda lagu jiro. waxaan ka digaynaa danaha siyaasadeed ee loo soo marayo tubta qabiilka, dadka lagu aruurinhayo, qolalka inta lagu xidho reeraha lagu abaabulayo, go-aanada dowladdu ay soo saarto ama kuwa amni ha noqdaan ama kuwa siyaasadeed lagu fashilinayo, lagu carqaladeynayo. intaas in ka badan lama sii eeganayo. reeraha ama shakhsiyaadka ku howlan inay abaabulaan tolla ay reer hebelow wax ku kiciyaan, arrintaas shacabkan dan oo ma aha. waxaan leenahay marka hore ka joogsada, laakiin mas-uuliyad ahaan hay-adaha amnigu waxay mas-uul ka yihiin dadkaas xasiloonidooda iyo noloshooda in dhibaata aynan soo gaadhin. waxaa mamnuuc ah shir reer hebel ay abaabul ku sameynayaan. reer hebel kolka la leeyahay waxaa jiro soomaalida dhaqan ahaan sida ay u dhisan tahay, dadku danay leeyihiin, dana qoys baa jira, dana dhaqan baa jiro. danaha dhaqanka ciddii u xil saaran ee mas-uulka ah bulshadeeda wixii danteeda ah way ka arrinsan kartaa, wayna ka tashan kartaa. salaadiin sharfan bay deegaanku leeyahay, odayaal dhaqan oo sharfan bay maaragtay bulshadeenu leedahay. way bulshadooda iyo wacyigeeda iyo dhaqankeeda iyo danaheeda way ku jihayn karaan. laakiin waxaa soconaya arrimo siyaasadeed oo dadka loo abaabulayo, baaqaq laga soo saarayo oo dadka isku dirayo. arrimahaas ha laga waantoobo, lamana ogolaanayo isku dayada noocaas ah ee lagu abuurayo sawaxanka iyo qalalaasaha inay sii socdaan, lamana ogolo, waana mamnuuc. arrintaas shacabku waan uga digaynaa. ciddii ku abaabulaysa bulshada falalka noocaas ahna tallaabada ku habboon ee sharciga ah baa laga qaadayaa. ugu dambeyn, arrimaha aflagaadooyinka ee baraha bulshada ka socda ee ku aadan beegsiga ashkhaasta hoggaanka u ah bulshada, iyaduna waxay muujinaysaa hanyarida iyo inay ku soo koobanto afkaartii shakhsi, afkaartii mucaarad inay ku soo aruurto in la beegsado shakhsi gaara. halkan dowlad iyo system iyo maamul baa ka dhisan, mas-uuliyada kala qeexan ayaa ka dhisan. in la kala jiheeyo oo cid walba sectorkeeda lagu dhaliilo waa waxyaabo dhisi karo adeega bulshada loo hayo. laakiin beegsiga shakhsi waxay muujinaysaa un nacayb iyo focus garayn meel gaar ah. marka waxaan ka digaynaa inaan lagu kaadsoomin warxumo tashiilka baraha bulshada lasoo marinayo, abaabulada iyo qalalaasaha la wadana laga waantoobo.